Assalaamu calaykum daawade. Habeen kasta oo Jimco ah waxaynu idin soo gudbinaa qisooyin cajiib ah oo horay dunida ugu dhacay, iyadoo ay xusid mudan tahay in qisooyinku ay yihiin waxyaabaha uu bini'aadamku uu ku cibro qaato. Haddaba, caawa waxaynu idin soo gudbin doonaa qiso la yaab leh oo dhex martay nin iyo xaaskiisa. inta aynu u guda galin qisadu, waxaan ka codsanaynaa in aad follow dhahdo page-ka, sidoo kalena aad share garayso muuqaalkan si saaxiibada kale uu u gaaro. Sidoo kale, subscribe-na aad saarto barta aynu YouTube ku leenahay ee Rogaal Media. Mahadsanid. Nin ayaa soo galay gurigiisa, waxa uu arkay xaaskiisii oo ooyeysa. Markaas ayuu weydiiyay sababta. Waxa ay ku jawaabtay, shimbiraha geedka gurigeena ka sarreeya saaran waa ay i fiiriyaan marka aan xijaab la'aan ahay. Taasina waxa ay noqon kartaa in aan alla ku caasiyey. Ninkii ayaa labada indhood dhexdooda ka dhunkaday xaaskiisii daahirnimadeeda ama dhowrsanaanteeda iyo alla ka cabsigeeda darteed. Waxa uuna soo qaatay faas, waxa uuna jaray geedkii. Toddobaad kadib ayuu shaqada ka soo laabtay goor hore. Waxa uuna arkay xaaskiisii oo hurda laabta nin kale oo gacaliyaheeda ah. Ninkii waxba ma samayn, laakiin waxa uu qaatay alaabtii uu u baahnaa, kadibna magaalada oo dhan ayuu ka cararay. Dabadeedna waxa uu gaaray magaalo fog. Waxa uuna arkay dad ku xunsan meel u dhow qasriga boqorka magaalada uu tagay. Kolkuu weydiiyey sababta, waxa ay dhaheen khasnadii boqorka ayaa la xaday. Isla xilligaasi, nin ayaa meesha soo maray oo taagtaagsanaya oo ku soconaya farihiisa. Waxa uuna weydiiyey dadkii, waa kuma ninkan? Waxa ay ku jawaabeen dadkii, waa sheekha magaalada. Waxa uu ku socdaa farihiisa isaga oo ka baqaya inuu ku istaago quraanjo kadibna dambi uu ka dhaco. Ninkii ayaa yiri, alla baan ku dhaartay, waxaan helay tuugii ee waxaad ii geysaan boqorka. Ninkii ayaa boqorkii ku yiri, sheekha magaalada waaye ninka xaday khasnada. Haddii aan been sheego, madaxa iga goy. Dabadeed askartii ayaa keenay sheekha. Baaritaan kadib, sheekha waxa uu qirtay inuu isagu yahay tuuga xaday khasnada boqorka. Boqorkii ayaa ku yiri ninkii, sideed ku ogaatay in sheekhu yahay tuuga? Ninkii ayaa yiri, marka uu qofka isdahiro oo uu ka hadlayo habdhaqanka sare, dhowrsanaanta, sharafka, heybada ama qabka, oo uu huwiyo qaabka badbadis ah ama buunbuunin siyaada ah, ama uu samaynayo ficilo wanaag ah oo xad ka bax ah, ogow in qofkaasi uu dambi qarinayo oo waxa sheegayo aysan runka ahayn. Haddaba, daawade, cibrada qisadani waxa ay tahay, waxaa jira dad bulshada ka mid ah oo muujiya in ay leeyihiin akhlaaq fiican ama dhaqan sare, isla markaasina sheegta in ay yihiin dad daacad ah, qab leh dhowrsoon ama xalaal quutayaal ah, si looga arko in ay yihiin ilaaliyaasha qayimka sare, balse xaqiiqadu waxa ay tahay in ay yihiin cagsiga waxa ay sheeganayaan. Haddii aad la dhacday qisadani, u sheer garee saaxiibadaada si iyaguna ay u daawadaan. Mahadsanid. Waxaan kaaga mahadcelinaynaa in aan haysano daawada adiga oo kale ah.